aruuriyo hadalka waxaan ugu celcelinaynaa aanu Soomaali midnimadeeda iyo inaynu dadka Amerika maxay ugu celcelinaynaa waxa weeye waxa dhibaatada dadkeena baday maanta baahida keenay in dadku sida ay maanta halka isugu yimaadaan oo anigu aan xogogaal u ahay maadaama 20 sanadood la soo shaqeynay oo waxa la iga sheekaynay dhibaatada Soomaaliya qabaan marka taas baan ugu celcelinaynaa guul way waagaadnay waan dadaalnay waan qabanay laakiin waxaan doonaynaa inay Soomaaliya jeclaan lahayn inaan aragno Soomaaliya meel ka soo wada jeeda oo wax wada qabsanaysa oo soo arkay inay walaal yihiin organization-ka wuxuu kaga duwan yahay anaga say noo sheegeen dadka aan caawino inaanu ahayn mid cid leedahay oo yahay mid Soomaaliya oo dhan waxa soo bixi doona dhawaanad ka daawan doonta iyagoo barxaati ka noqon doonta hadlay website soo baxayo sababtooda dhawaan waxaan kaloo kaga faa'iideysanayaa fursadan oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo telefishinka qaranka iyo boocame inka farsamada maanta la socda ay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin marka aan gaarnay nagu halka inoo soo kordhay oo wax loogu mahadnaqo iyadana waa runtii markaad eegto Soomaalida dib kasta ha jiraan oo dhibaatooyinku iska badan yihiin oo waxaan maanta la isku sheegay ma aha waxa garab socda dadku kartida Soomaalidu ay leedahay iyo firfircoonida ay leedahay waynu maanta arkayno dadaalka ay gaadheen oo telefishinka barxaati ka yahay iyo kuwa la midka iyo maxaan ku dhahay xagga kale shaqada ama isgaarsiinta wadankii ka socda iyo dadka dadaalaya wadankii jooga ee hor Ilaahay ugu qabsanay anigu waa volunteer baan 20 ka sanadood hor Ilaahay waan ku soo qabanay aniga ugu dheedan ka hadlaya waxa uu ku qabanaya maaha inta in maxaan ku dhahay mashaariic shaqo la isiin dhawr dadkayga wax ku qabanay anigu waxaan soo arkay waajibkayga ka soo baxay haddaan ku noqdo dadka wadankeena jooga waxaan ku soo arkay markaan wadankii ku noqday aan tagay Soomaaliya rag dadaalaya dumar dadaalaya dadkii wuxuu dhigaya iskuulada dhigaya caruur doonaya inay wax bartaan iyadoo dhibaato ka sii jirto oo dadaalaya marka waxa weeye wax badan dad badan oo wacan baynu leenahay dad badan oo wacan oo dadaalaya inuu leenahay dad karti badan oo hadday doonayaan inay wax bartaan qaban karaynu leenahay balse waxa loo baahan yahay inaynu taanadayno haddaynu taanadayno wadankeena quruxda badan ee wax walba yaalaan oo aad ka arki doontaan sawiraan ka soo qabanay markaan tagana wuxuu organization hadaan nahay waxaan u leenahay xiriir wadankeena jecelahay shaqo ka bilaabato sida ugu dhaqsaha badan hadii ay waxa weeyaan arki doontaan wadan qurux badan oo aad u wacan oo qaniya oo bad leh oo wabiya leh oo hawo fiican leh oo xoolo leh oo wax walba leh oo maxaan ku dhahay la leeyahay minka macdanta ku duugan aan cidi wali farsaarin baaciida ka badan waxayna wali maxayna baday dhibaatada maxayna baday qaxootiga maxayna baday silaca aynu waxa ka baxno midowna aad baan idinku mahadnaqayaa dhamaantiin sida ay nabadgelyo